Barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo wali ku guda jira kormeerkiisa shaqo ee xarumaha dawladda ee magaalada Boorama ayaa waxa uu maanta soo kormeeray xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama jidad cusub oo laga hirgeliyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama iyo garoonka diyaaradaha kormeerkan ayaa waxa ku wehelinayay duqa degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi iyo xogayaha fulinta ee gobolka Awdal markii uu kormeerkaas uu soo dhamaaday ayaa waxa ka warbixiyay xogayaha fulinta ee gobolka Awdal Mustafa Cabdi Duudu iyo duqa degmada Boorama waxaana hadaladoodii kamid ahaa kormeerkii dhammaan xarumaha dawladda iyo laamaha dawladda si loogu hurgalo runtii baahiyaha asaasiga ah ka maqan ee lagu kordhin karo maalintii afraad gudoomiyaha gobolka nagu hogaaminayay kormeerkii dhammaan laamaha dawladda kulli gudoomiyaha ka warbixin doona kormeerkii maanta laakiin waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan inuu gudoomiyuhu nagu amray in buug laga sameeyo notebook oo kooban baahiyaha muhiimka ah ee wasaaradaha dhan ama laamaha dawladda dhan marka waxaan uga faa'iideysanayaa dhammaan isuduwayaasha iyo laamaha dawladda ee gobolka dhan in ugu dambeyn sabtida ay soo gudbiyaan baahiyaha laga maarmaanka ah dadka dilada baahi yani wax badan bal laga qofku inuu baahidii u haysto laakiin 2 3 4 5 qodob ee ugu muhiimsan ee wasaaradaadu ama laantaadaasi ay ka dhaqaaqi lahayd inaad soo nood garayso anagoo barasaabka uu hogaaminayo waa goob kasta soo dul istaagay waxa kale oo soo marnay wadooyinkii dawladda hoose dhisaysay ee muhiimka u ahaa isku socodka magaalada iyo kororka iyo bilicdaba kullay institution kasto dawliyo halka ka jira haduu local yahay iyo haduu centralka yahay iyo haduu dawladda yahayba waxa maanta xoogaal u yahay barasaabka cusubi xaalad walba oo hay'ad kasto oo dawladeed halka ay ka taagan tahay gobolka baahideeda iyo waxay hayso waxay u baahan tahay in lala qabto iyo waxay haysato ee u baahan in lala toosiyo kulli maanta wadooyinkan ma dhisayna war soo maray ilaa airportkii baan tagnay runtii baahidiisa waan isla soo aragnay kullay gudoomiyaha ka warbixin doona oo hawshaan uga bixi doona waxaan leeyahay haduu ilaahay raahdo kullay maanta farxad bay noo tahay wal hadii barasaabkii goob walba uu indhahaygan ku soo arko haduu istaago wixii anigu og oo la iga warramayn aan ka warbixiyo aad iyo aad buu maasantahay waan ku soo dhaweynaa runtii dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin Timbaro waxaana uu fariimo kala duwan u diray mas'uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland u matasha gobolka Awdal waxaana hadaladiisii kamid ahaa saaka hawsheedu waxa ka bilaabantay dawladda hoose xafiiska gudihiisa reer Boorama meelaha ugu badan ee xantaana waa dawladda hoose waxa ma tartay waa inaynu ogaanaa maxaa meesha ka qaldan maxaa u saxa wadaadkaygu intaas un buu ahaa waanu iswaraysanay waanu israacnay hawlaha ay wadaan baanu la soo eegnay waxaanu dareen ka wada qaadanay waxyaabaha ka maqan way jiri karaan dhalintu aab ma in la dhalila qofka dhalintaan waxaan arkaa toosin qofka ku dhalila waxaanu soo maray wadooyinkaas waxaan magaalada uga baxnay xagga wadadii loo markii hore sarfeega loogu qaaday inay wadadii ilaa Seylac noqonayso waxaan iyana u baaqo yar u dirayaa xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Awdal iyo wasiiradooda oo aan leeyahay war anagu waanu keenaynaa baahidii idinkuna dabagalkeedii nagu taageero markaan waxaasaan naga maqan caasimadda idinka noo joogay dabagalkeeda idinka la idinka rabaa sida ay qolada Sool iyo Sanaag iyo ugu qayliyaan gobolkooda inaan gobolkeena ugu qaylisan baan idinka baahanahay waxaanu keenaynaa wax positive-una waxa la yaalo wax dhibaato ku jirta ma jirto oo wax ka sheekeynay horumarka gobolka markaad bari joogto gobolka aad baa loo tuunsan wax walba galbeed baa qaatay baa la yiraahdaa teen waa taas oo maqsin keenay mafrishkay habeel wax xafiiska barasaabka waa fadeexad waa canaanta waxa iskale dadweynaha ku nool magaalada Boorama oo dhan baa iskale
Sikriya Cabdi Sheekh Faarax Sikriya Saxane telefishinka caalamiga Horyaal TV magaalada Boorama.